إلهي سبحانه وتعالى وحيابها وقول نعبي وحاكم ذا خيانة قفكم مركو خائي هي ولقي حرق ومحيره سمعلو وحيتر ذا قد سيرد هقودين هدا قديدنا هدارين كل عدون تيانا موجودين dad fara badani waxay aad ugu dadaalaan intay wax qarin karaan inay wax qariyaan waxay Soomaalidu tiraahdaa wax la qariyo qurun baa ku jira inta aad wax qarinaysid inta aad wax la duuduumanaysid qalbigaagu walaac iyo walwal iyo kurbo iyo ciriiri kama dhamaanayo inta aad qof bini aadam lu goynaysidna adiga uun baa lu go'an waxa maanta aad u yaraatay in bini aadamku ay saaminaan gaar ahaan markay noqoto heerkii qoys iyo haday tahay heerkii xiriir ee labada qof ay isla socotay in farabadan oo dadka kamida maanta kalsooni darrada ku jirta waxa keenaysa in naf ahaantoodu ay wax uun ka shakiyaan haddana saasoo tahay waxa jira dad farabadan oo kale oo aan waxba shakiyi ku jirin ay iska tahay uun kaliya bal qofkaaga muddaad wada socoteen khiyaanadan tirada badan waxyaabahan maalmahan dhacaya bal iska tijaabi waxaana dhacday in dad farabadani ay guurkii ka baqaan qof inay la socdaan ka baqaan oo ay ka fogaadaan oo ka durkaan cabsidaana waxa ku beeray waa dadka kale ee maalin kasta ay arkayaan ee la lugoynayo ee ooyaya ee qalbi jaban ee la khiyaanay ee noloshooda ciriiriga la geliyay si marka taa ay uga badbaadaan ay dad farabadani waxay isku dayeen guurka iyo afaarihiisaba ka yara durkaan wayna dhacda xaqiiqo si marka tani aysan u dhicin qof walba waxaad ku dadaashaa waxaad ogaataa danto adigay kuugu jirtaa haddii aad qof khiyaantid oo qof qalbiga ka jabisid oo qof lugoysid oo qof waqtigiisa ka lumisid ama xoolihiisa xaq darra aad ku cunaysid idinkoo xiriir uu idinka dhaxeeyo adoo og berri inaadan qofka la sii socon doonin ama dan aadan kala hayn lugooyo oo kaliya inay tahayna aad og tahay nafahaantaada noloshaada iyo aayatiinkaaga dambe ka go'antay nabsigu meelna ma harsado cidii kasbatana qasab meel buu ku sugayaa meel ayuu ku sugayaa noloshaada dambe ma garanaysa xaaladaadu say noqonayso waxa dhici karta qofka dambe oo jeclaatid inuu ku khiyaano qofka dambe oo jeclaata inuu ku lugooyo qofka dambe oo jeclaata inuu ka jaro intii iyo ka badan hubaalna labada qof kan hore ee la khiyaanay ee la qalbi jabiyay ee niyada laga dilay inta badan waxbuu ka bartaa laakiin kan khiyaanada geystay saddex jibaar buu xanuun ka dareemaa inta badan markay wax ku dhacaan waayo isaga uun baa weligii fali jiray ma uusan ka filanayn qof kale inuu ku samayn doono